xarunta xuquuqul insaanka Somaliland ayaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka iyo sharciga Somalilandba mid ka hor imaanaya ku tilmaantay xariga Naciime Axmed Ibraahim oo Naciime Abwaan Qorane ku magac dheer oo ahayd sidoo kale iyadana abwaanad ku xiran magaalada Hargeysa maalinkii toddobaad xarunta ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay maanta waxa ay kaga dalbatay maamulka Somaliland inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan gabadhaasi oo ka tirsaneyd hal abuurada da'da yar ee Soomaaliyeed haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaan goordhow kula xiriiray Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Somaliland war-saxaafadeedkan maanta soo saaray wuxuu la xiriiraa xariga 27 January loo geystay Naciime Axmed Ibraahim oo ahayd iyaduna lafteeda abwaanad oo laga xidhay gegida diyaaradaha ee Hargeysa iyadoo sii dhoofisay magaalada Muqdisho ilaa haddana xidhan waa gartay ma booqateen oo xaalkeeda ma ka warqabtaan meesha ay ku xiran tahay iyo sida caafimaadkeeda xataa uu yahay haatan caafimaadkeedu wuu fiican yahay waxay ku xidhan tahay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa inkastoo hadda maalmihii dambeeyay aan loo ogoleyn in waalidkeed la kulmo kadib markii aabiyada warbaahinta la hadlay kadib caafimaadkeedu way wanaagsan tahay laakiin xarun ahaan waxaan aad uga walaacsannahay xariga Naciime aan u aragno inaan loo marin wada sharci ah sababta loo xidhay aanay ahayn mid waafaqsan dastuurka Somaliland yaala waa gartay maxaa lagu xiray Naciime haddaad noo sheegi kartid ma jirto eed rasmi oo maxkamadda loo soo gudbiyay laakiin qareenkeedu wuxuu noo xaqiijiyay in loo haysto qoraallo la sheegay in lagu qoray farteeda barta Facebook ay ku leedahay oo la xiriira midnimada Soomaaliya waalidkeedii iyo qoyskeeduna saasay aaminsan yihiin sababta loo xiray midaas ayaa la xiriira aragtideeda ay cabirtay waa gartay marka qofka xorriyatul qolka markii la fiiriyo xuquuq intee leeg ayuu u leeyahay in uu ka hadli karo xataa fikradiisa waxa uu qabo uu soo bandhigi karo sideese taasi xorriyatul qolka uga hor imaanaysaa haddaad adiga bal noo sharaxid dastuurka Somaliland iyo xeerarka caalamiga uu kamid yahay baabka caalamiga xuquuq insaanka intuba waxay u damaanad qaadayaan dadku inay dhiiban karaan aragtidooda ayna cabiri karaan aragtidooda hadda sida la noqoto dawladuhuna awood uma leh gaar ahaan dawladda Somaliland inay qof ku qabsato fikirkiisa uu dhiibtay iyo aragtidiisa oo cabirtay oo wax kastaba ha la xiriiray aragtida oo cabiranaya qofka saalka uu yahay in fikir yeesho iyo dadka la wadaago fikirkiisa marka in qof loo xidho aragtidiisa ma aha mid waafaqsan dastuurka Somaliland yaal waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedu noo xaqiijiyay aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yiraahdo markii la xidhay loo soo goosay taasina ma aha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa waa tahay Guuleed Axmed Jaamac oo waxaa jirta in sabtidan maanta sabtideedii kale la xiray ee Naciime Abwaan Qorane ilaa iyo haatan wax maxkamadana aan la soo taagin muddo 8 cisho ku dhow sida wararku ay noo sheegayaan marka taasi lafteeda ma kala hadasheen maamulka oo maaragtay ma kala xaajoteen xataa maadaama xuquuqul insaankii aad xil saaran tihiin waxaan la sameeynin waxa loo yaqaan eed ama ashkato dacwadeed oo maxkamadda horteeda keenay baan jirin laakiin maxkamadda waa la hor keenay maxkamadduna waxa booliisku ka codsaday muddo ay haynayaan si ay baaritaan soo sameeyaan waxa qaladka ah bilowgaba waxa weeye in qof loo soo xidhay in aragtidiisa dhiibto iyadoo weliba iska sii socoto dadka kasii dhoofaysay ayaa arrin qaldana iyadoo amar maxkamadeed aan loo haysanayn dadka lagu xidhaa waa qalad weeye marka waxaan mas-uuliyiinta Somaliland aad iyo aad uga codsanaynaa inay u ogolaadaan marka koobaad waalidkeeduna inay Naciime arki karaan oo la kulmi karaan sidoo kale inay xorriyaddeeda sida dhaqsaha ugu soo celiso oo ay ixtiraamto dastuurka Somaliland oo ogol dadku inay aragti dhiiban karaan haba noqoto aragtidaas mid ka cadhaysan mas-uuliyiinta ama dadka intiisa badanba in aragtidooda dadka dhiiban karo waxna jecelahay in carabka ku adkeeyo damaanadqaadka dadku aragtidooda dhiiban karaan ma aha oo keliya in qofku aragtida dadka ka farxisa sheego ama aragtida dadka intiisa badan ay aaminsan yihiin oo qofku aragtidiisa gaarka haddii dadka ka cadhaysiinaysa hadday ka farxinayso xaq u leeyahay inuu sheegto marka haddii waxa Naciime loo haystaa ay arrinkaa tahay waxaan dowladda Somaliland ka codsanay xiriirdeeda soo celiso oo ogolaato inay nolosheeda caadiga wadato waa gartay waxaad ii sheegtay in saldhigga dhexe ay ku xiran tahay ee magaalada Hargeysa marka ilaa ay haatan adinka ma la kulanteen ma aragteen xataa ma ladin ogolaaday maadaama waalidiinteed loo diiday bal adinka ma aragteen Naciime siday tahay qareenaan u xil saaray oo iyadana qareen si rasmi ah ugu ah oo xarunteedana ka tirsan baa fursad u helay inuu la kulmo oo wareysto maalmihii lagu soo xiray saldhigga dhexe marka fursadda waan u helay inaan la kulano waa gartay marka sidee buu xaalkeeda ahaa haddaan balse kale kugu celiyo ma idin la hadashay wana la hadashay runtii aad bay uga walwalaysanayd ugana walaacsaneed xariga loo geystay runtii oo niyadeeda kumay faraxsanayn in la xidho laakiin caafimaadkeedu wanaagsanaa laakiin qof sugaan faldambiyeed geysan aragtidiisa kuwa loo soo xidhay oo meel ku xulan runtii dareenkiisa waad fahmi kartaa inuu aad iyo aad uga walaacsanaa uga walwalsan yahayna in xariga loo haysto waa gartay Guuleed bal waxaad iiga warantaa ugu dambeyntii hadda
maxaad usoo jeedinaysaa guud ahaan maamulka iyo gaar ahaan xataa xabsiga ay ku xiran tahay Naciimo maadaama aad tahay madaxii xuquuqul insaanka? waxaan ka codsanayaa in loo ogaado ehelkeeda, qaraabadeeda iyo ciddii kasta ay doonaysa inay la kulanto, taasi dastuurku u damaanad qaada in cidna loo diidi karo inay la kulanto. marka labaadna waxaan dowladda ka codsanaya in xorriyaddeeda usoo celiso oo dastuurka Somaliland ee maganta ay u yihiin cid kastoo gudaha Somaliland joogto lagu ixtiraamo in dadku cabiri karaan aragtidooda oo aan arrinkaa loo haysanin abwaanada Naciimo Axmed Ibraahim. Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Somaliland oo khadka telefoonka goor dhaweeyay igu waramay.